farxad ay u tahay qof walbaaba inuu arko midabka cagaarka macnaheedu waxa weeyaan qof walbaaba lacag ayuu sameynaya qof walbaaba faa'iido ayuu ku jira kusoo dhawaada videogan maanta videogan waxaan kugu wadaagi doonaa newska kasoo baxaya cryptocurrency kow oynu eegi doonaan analyze garan doona bitcoin iyo sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa afar coin oo aan gadaal ka maalgashaday maadaama bitcoin ay samaysay hoose dhac ay samaysay taasna anuu kaga faa'iidaysanaya suuqa waxaan fursad ahaan ku helay in aan maalgashado afar coin kuwaasaan ku biiriyay portfoliohayga haddaba soo dhow ayaan ku leeyahay qaxwahaaga soo qaado kuna soo dhow familiga hanti yeelo sidoo kale waxaan rabaa intaan video guda gelin haddii aadan nagu soo biirin telegram groupkayga waxaan kuu huba in information fara badan uu ku dhaafay marka intii aad sugi lahayd video inta soo gelinayo haddii uu jiro news degdega waxaan kula wadaagaa telegramka marka telegramka hoosta ayaan kusoo dhigi doonaa nagu soo biir ayaan ku leeyahay marka koowaad aanu gudagalno oynu ku bilowno bitcoin waxaanu aragnay in ay dhaafi lacayd meeshan iyadoo ahayd meel carqalad ku noqotay bitcoin gaar ahaan bilihii lasoo dhaafay haddaba haddii aynu eegno waxa ay kasoo bilaabmatay in ay meesha ku dabameerisato laga soo bilaabo November ilaa waqtiga xaadirkan aynu joogno oo ah sanad cusub iyo bil cusub oo ah January kow welibana haddaba haddii aynu eegno oynu taxliilino bitcoin waxaynu marar fara badan taxliilnay in bitcoin bil walba markay dhamaanayso si fiican dhigaysa dadkii bil walba markay dhamaanayso bitcoin in bilii ugu dambeysay inay samayso in hoos dhac samayso kabacdina bishu marka ay bilaabmato inay samayso dhaqaaq noocana haddaba maxaa ina soo dhaafay waxaa ina soo dhaafay in bishu ay dhamaadahayd maxay samaysay hoos dhac ay samaysay haddaba iyadoo lagu jiro waqti aad u adag taasoo mataqaan dadku fasaxay galeen haddana bitcoin weli ka hadda waxay haysay demandigii ugu dambeeyay ee sameeyey all-time high ama higher high cusub haddaba maadaama bil cusub la galay maxaynu filan karanaa qof walbaaba hama shaxarado waxaynu filan karanaa inuu suuqu u dhaqaaq samayn doono weliba gaar ahaan bisha bilowgeeda haddaba maadaama ay dhaqaaq samayn karto maxaa suurtagala haddii kusii wado xawaaraha ay kusii wado bitcoin saynu hore u aragnay waxaynu soo waranay inuu gaari karo 150 haddaba goor bay gaari doontaa bishan haddii gaari weydo bilaa ku xiga way gaari doonta waa haddii lacala ay kusii wado dhaqaaqa noocaasa taasoo mataqaanaa ah kii ay soo waday ah dhaqaaqa noocana macnaheedu waxa weyn dhaqaaqa noocana ayaan u jeeda haddii lacala dhaqaaqa noocana sii wado move noocana ay samayso waxaa suurtagala inay gaadho 150 bala si fiican loo calaamadayo in 150 kun ay gaadho haddii bishan gaari weydo bisha ku xigta way gaari oy haddii lacala ay kusii wado sida ay wax u wado haddaba aynu gudagalno haddaba coinska iyaguna mataqaana aan gadaal ka maalgashaday maxay yihiin haddaba marka koowaad waxaa jira laba sector aad u xiiseynay aadna mataqaana focuska ugu saaray sanadkiina soo dhaafay macna 2024 sidoo kalena sanadkan is leeyahay mustaqbal fiican ay leeyihiin labadaas sector aad ku xiiseyn waxay DeFi sector iyo CBDC coinska haddaba DeFi sectorku maxay tasabto iyo CBDC coinska labadan projectiba ama labada sectorba aad waxa u taageeraya maxaa la yiraahdaa Donald Trump iyo dowladda Mareykanku AI waa sector fiican laakiin waxaan isleeyahay labadan sector ba sanadkan 2025 ilaa 2024 sano aragnaba dhaqaaq fiican sameyn doono sida XRP haddaba maadaama aan idin leeyahay labada sector ayaan xiiseyn labada sector ayaan waxaan kasoo dhaxoshay afar coin aan weliba isku barbadig sameynaya haddaba aan ku bilaabo DeFi sectorka haddaynu eegno waxaa jira coin aad fiican sida Solana Sui haddaba waxaa jira sidoo kale coin sidoo kale dhaqaaq noocyadoo kale sameyn kara laakiin market cap hooseeya leh sidoo kale isku project isku wax qabanayo haddaba Sui waqti xaadirkan haddaan isha ku hor dhafto waa Sui haddaan halkan ku qornayn halkan ayaan ku qori doonaa sample idin tuso waqti xaadirkan Sui halkay taagan tahay haddaan Sui ku dhafto marka waa tanay market cap waxa weyn 12 bilyan haddaba waxaa jira coin sidoo kale ka hooseeya market cap noocan kaliya hadday sameeyaan 3x hadday sameeyaan weli ka hadaan soo gaarin market cap ka leedahay Sui haddaba dhammaan coinka kugula wadaagi doonaan waxay ka yar yihiin $10 haddaba maxay yihiin coinanka sida Sui oo kala noqon karaya market capkeeda uu hooseeyo laakiin dhaqaaq fiican la sameyn karaya coinka koobaad ee gadaal ka maalgashaday weliba sidoo kale barbardhig ee ku sameeyay waxay ahayd kow waa Exceler waqti xaadirkan waxay taagan tahay $0.6 ayuu taagan yahay technical geli maayo laakiin waxaan idin wadaagi doonaa coinka iyo price ku taagan iyo market capka Exceler waxa weeyaan 596 milyan 596 milyan weyn market capkiisu Sui waa 12 bilyan Exceler waa DeFi sector isku si ay wada shaqeeyaan laakiin market cap hooseeya ay leedahay waqti xaadirkan waxay taagantay $0.6 all time high goal ay gaadhay waxa ay gaadhay kowdii March 2024 waqti xaadirkaasna waxay gaadhay $2.64 waqti xaadirkan waxay hoos uga dhacsantahay 74% all time high haddaba Exceler waqti xaadirkan waxay taagantay 0.6 waxaan filan karayaa 4x ama 5x haddii ay
bitcoin ay dhaqaaq fiican samayso iyaduna way samayn doontaa biidmillah. coinka labaad een idin wadaagi doono waa maxay? waa sai. XLR ayaan ka doorbiday coin ahaan number 1. 2 waxa ay sai. dad far badan waxay codeeyeen sai. haddaba sai waqti xaadirka waxay taagantahay $0.4 ay taagantahay. market capkeedu waa maxay? weli ka hataa way fiican tahay, waa 1 billion, halka sugan aan aragn 12 billion inay tahay. haddaba goorma gaadho all-time high? all-time high waxa weeyaan waa $1.14 weeyaan all-time high-giisu. waqti xaadirkan wuxuu hoos uga dhacsan yahay 62% oo ah hadda $0.4 inuu taagan waqti xaadirkan. haddaba coinka sai suurtagal waxa ah inuu welibana gaar ahaan wuxuu leeyahay sai macnaha transaction ahaan wuxuu ka mid yahay coinanka ugu sarreeya 3 ku jira, kaasoo mataqaana waan ka samayn doonaa macna mar inaan barbardhig ku sameeyo, maraan barbardhig ugu sameeyey in mataqaana uu yahay coinanka transaction fee-ga ugu hooseeya uguna dhaqsaa badan leh waqti xaadirkii la joogo cryptocurrency sai weeyaan. haddaba coinka saddexaad waa maxay? DeFi sector aan kusoo gabagabeynayo. coinka saddexaad waa weyn Polygon Matic. cilada ay lahayd waxay ahayd maadaama uu kala jabay, balse weli ka hadda Polygon Matic inkastoo high market cap uu yahay, haddana marka la barbardhigo kuwii horeen idinla wadaagay, balse still Polygon Matic waxa weyn projectii aan isleeyahay mustaqbal fiican ayuu leeyahay. waqti xaadirka waxay tagantay Polygon Matic waa TX ay ku qoran tahaynaya Binance hal mid baa ku jirna si wanaag. haddaba waqti xaadirka waxay taagan tahay $0.47 ay taagan tahay. all-time high goorma gaadhay? market capkiisa ku horeysiiyo waa 4 billion weeyaan. goorma gaadhay all-time high? all-time high waxay gaadhay March 13 waxayna ay ahayd $1.29. waqti xaadirkan waxay hoos uga dhacsan tahay 62% ay hoos uga dhacsan tahay Polygon Matic. layer 2 scaling solution waxa weyn project aad fiican, waqti xaadirkan uu taagan yahay $0.4 ay taagan. haddii 4x sameeyo naga badan taasi. haddaba coinka afraad ama sectorka aan idin wadaagayn aadna u xiiseyn waxa weyn waa CBDC coins. waxaan arkaa CBDC coins dhammaantood inay dhaqaaq fiican sameeyaan, laakiin still waxa jira coin aan aad u taageero waqtina aan ku lahaa fursadan ku raadinay, kaasna waa maxay? waa coinkan Algorand. mar furdan oo ka sheekeynaa daraytan Algorand inuu yahay project fiican balse aan maalgashan. ugu dambeystii fursadaan ku galay dhaqaaqa ay samaysay bitcoin iyadoo dib isku soo celisay ayaan kaga faa'iidaystay. Algorand waqti xaadirka wuxuu taagan yahay $0.39 ayuu taagan yahay. market capkiisu waa maxay? waa 3 billion. haddii ay gaadho 3x hadday samayso Algorand dhaqaaq waalina way samayso Algorand. intaan u fiirsanayay iyo intaan analyze garaynayba Algorand goorma gaadho all-time high? all-time high waxay gaadhay $3.5 ayuu ahaa all-time high-giisu. waqti xaadirkan waxay hoos uga dhacsan tahay 88.9%. Algorand haddii gaadho iyaduna mataqaana $3 $2 intaas ayaa aniga ahaantay project ahaan ama portfolio ahaan igu filan. haddaba lacalla haddii ay bitcoin gaadho oo ay samayso dhaqaaq nooca aan idin wadaagay 150 ay gaadho, muxuu yahay portfolio-haagu? lacag intii leeg ba kasoo bixi doonta ma yahay mid kuu goynaya maxaa la dhahdaa Ferrari ama mid wax soo qoray waxa ii goyn doontaa G-Wagon? hadduu G-Wagon ma goyn karaya, hadduusan goyn karinin Ferrari ma goyn karaya, hadduusan goyn karin Mercedes ma goyn karaya, hadduusan goyn karin gawaarida kale jeceshaxiiseenayso ma goyn karaya. bal hoosta ugu wadaag la talin dhaqaale ma yihi waxa weeyaan keliya educational purpose. marka waxa ku filan raadi waa markii xigta caafimaad badan jabada suuban. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.